geelun baa masaafo dheer loo geynayay si ay biyo tayo leh maadaama geelu wax badan la qadiyo isbuuc meelahaas geela la qadiyo saa darteed baa geela biyaha adag oo dhanaan kana leh oga waraabi waan gartay horta sida aad ka warqabtid faraq ayaa u dhaxeeya beeralayda iyo xoolo dhaqatada ma inoo sheegi kartaa faraqa u dhaxeeya dadka xoolo dhaqatada ah iyo dadka beeralayda ah dadka xoolo dhaqatada iyo dadka beeralayda waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn beeralaydu sida ogsoonahay waxay qotaan markay meesha beer ka samaysanayaan ceel ay beeraha iyo xoolaha ay haystaanba ay ku waraabiyaan laakiin dadka reer guraaga waa nasiib meesha ay xoolahoodu wax ka cunaan haddaysan hal ceel lahayn u degaan cawska dartii marka farqiga u dhaxeeya waxaan aaminsanahay inuu ka yahay waa ku baahsantahay laakiin soo ma dhihi karno dadka beeralayda ah sida badan ma aha reer guuraa oo ayagu waxa ay sugaan dalaga ay beertaan ayagoo laba u kala dhiga mid ay iibgeeyaan iyo mid ay kaydsadaan marka okay tbiyahaynu ka hadlaynay tan dalag oo kale waa sidaad sheegtay iyo dad reer guuraa maaha waa dad waxay beertaan waqtigu usoo suga halka kuwani ay raxmadda eebe waqtigii da'do ay geedahaasi soo baxaan cirkana roob laga helo haa marka macnaheedu waxa weeye xoolo dhaqatadu sida badan waxay u badan yihiin reer guuraa waayo ayagu waxa ay ku xiran yihiin hadba meesha roobka uu ka do-o aad iyo aad taasi ku xiran yihiin laakiin dadka beeralayda ah waa dad ku sugan goobta ay joogaan oo ka faa'iidaysta marka beeruhu ay u baxaan xilli abaareedkana waxay isticmaalaan kaydka ay dhigtaan markaas oo mirihii la beeray ay ka samaystaan aad iyo aad kaydka ay dhigteen unbay cunaan halka reer miyigu aysan wax kayda lahayn ama reer guuraaga xoolaha marba dhinac ula guura nasiibkooda marba meeshay degaan ayay ku nagaadaan waqti yar way ka guuraan iyagoo xoolahooda la raadinaya baadiyo waxaa jira reer guuraa ka tirsan oo la yidhaahdo jes reerkaasi waxa ay degaan meel aad uga baxsan dadka ay la degayaan weli indhaha ma ku soo aragtay reerka jeeska ah oo aan jeclayn in ay la degaan dadka oo gooni u dega aad iyo aad waxaan u tegay reer jeesa waqtino walow aan waqti badan aan la qaadan laakiin reerkaasi waxay deganaayeen meel ka durugsan reeraha kale inkastay xoogaa ay u dhawaayeen laakiin dee lama odhan karo way u dhow yihiin laakiin reer miyigu waxay aaminsan yihiin inay isku dhow yihiin reerkaas waxyaabo badan baan kala sheekaystay sida jeeska oo kale maxaa jees naga dhigay ta koowaada ii sheegeen waxay noqotay inay cashiimo tahay waxay u yaqaanaan reer guraagu sida xoolaha inaan la isku darsan oo kale ay aaminsan waan gartay sidoo kale inaan carruurtu galaan adigaa ku watee aniga runtii barisamaadkii waxa oday abti ii ah ayaa waxa uu ahaa reerka jeeska u dega meeshaasi waxaan kala kulmay cabsi fara badan waayo meelaha qaarkood waxa ay leeyihiin libaax waxa ay leeyihiin dhurwaa marka intii aad ku sugnayd qoyska jeeska ah wax cabsiya ma la kulantay intii aan halkaa ku sugnaa wax cabsiya waad la kulmaysaa maadaama aadan dhaqankii baadiyahaadan aqoon reerkana uu degan yahay meel cidlaa waxaad dhici karta in dee cabsi badan kusoo wajahdo waxaa laga yaabaa reerku inay yihiin gabadh iyo odaygeeda iyo carruur aad u yaryar badanaa martidu markay usoo hoyato waxaa la geeyaa geela hortiisa ama adhiga hortiisa ama ardaaga marka cabsi dee carruurtiina inaadan gurigii la geli karayn baa dhici karta ay aad u yaryar yihiin cabsi badan baa kaaga imaan karta halkaas waan gartay intii aad ku sugnayd miyiga ma isku dayday in aad ariga raacdid in aad xoolaha listid waa su-aasha ugu dambayso raba inaan ku weydiiyo horta waxaan isku dayay inaan lisi karo geela waa waxa keliya aan jeclahay ama xayawaanka wayna ii suurta gashay anoo barnaamijkayga kasoo diyaariyay bartamaha gargajka anoo hashigisaya sidoo kale waxaan raacay gudaha aan waqti diyaar lasoo joogay sidoo kale xerada riyahoo kale anoo maqashii oo kale ku dhex jira
ama kala habeynaya sida marwadii guriga lahayd oo kale iska dhigaya anoo qadadii kariyey ama shaahii sidoo kale bariis cad kariyey subag ku daray anoo haanti lulay oo fiidiyoyaan diyaariyey laakiin aan weli soo aad ayaad u mahadsan tahay sida quruxda badan iyo su-aalaha sida aada nooga jawaabtay mustaqbalka dhow waxaan filaynaa in daraasaad fara badan oo dadka qurba joogtaa ay uga baahayeen dhinaca miyiga haddaba waxaan kugu bogaadinayaa culays fara badan inaad saartid safaradaada miyiga ah inta aanu ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah waa asbiro oo ku dhahaya maalin wanaagsan walaalo aad baad mahadsantahay walaalkay asbiro waxaan rajaynayaa inaan barnaamijyo kuwan ka xiisa badan aynu mar labaad isugu nimaadno amaad iga wareysan doonto aniguna aan su-aalahayga kaa weydiin doono dhanka qurba joogta iyo dadka xaggaa nooga haya sidee ula socotaa filimka kaafiya kala dheeri filimka kaafiya kala dheeri wallahi si wanaagsan baa ula socdaa xalqado badan baan ka daawaday waxyaabo badanna waan ka faa'iiday inkastoon isagoon soo bixin filimkaasi ay walaashay ilhaan xarago ay iga sheekaysay inta hore waa waqtiguusan soo bixin anoo filimkii haya uu filimkii soo baxay marka aad baan ula socdaa filimkaasna waan inagu bogaadinayaa wax kastoo ay bulshadu u baahan tahay inaad